jaaliyadda galmudug ee dalka Finland waxay shalay qalab isboortis guddoonsiisay kooxda ka dhisan degmada Yaaqshiid ee Tawakal FC. Kooxda Tawakal FC oo ka qayb galaysa tartamada kala duwan ee lagu maamuusay bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa shalay waxay kulan ku ciyaartay garoon ku yaalo degmada Yaaqshiid ee Quraca. qalabka isboortis ee loo soo wakiishtay aabaha isboortiska dalka Finland Axmed Cabdullaahi Maxamuud ayaa ku wareejiyay kooxda isagoo goobta ka hadlay. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Maxamuud anigoo ah aabaha isboortiga dalka Finland. maanta waxaan halkan u imid oo soo wakiishay jaaliyadda galmudug ee dalka Finland oo gudoomiye ka yahay Cabdullaahi Cadceed in aan dhalinyaradan oo kooxda Tawakal aan qalab isboorti guddoonsiino oo maaragtay si ay maaragtay moraalkooda ugu sii dhismo isboortigana hore u sii wadaan sidaad u soontiina isboortigu waa isdhexgal oo bulsho ah waad u jeedaan maanta oo Ramadaana sida garoonka loo buuxiyo tartankan oo Ramadaanka oo ka socdo waxaan hadda kadibna aan maaragtay aan ku talagaleynaa in aan aad u caawino kooxahan oo aan maaragtay dalka Finland ururada isboortiga ka jira aan ku soo xirno idinkana astaan waa mahadsantiin. waxay tahay fursad aad iyo aad u qaaliya oo sharaf ah in halkan maanta kula kulmo shahriyadii Soomaaliyeed ee waddanka Finland oo dhan khaasatan magaalada Helsinki. raxiim hambaliyo waxaan runtii aniga oo Calas Maxamuud Caliya adinkoo Soomaali weyn oo reer Turku iyo reer Rays iyo reer Barsinay Soomiya bulsho weynta Soomaaliyeed ee caalamka dacaladiisa ku nool waxaan ugu hambaliyeynayaa maalintan qiimaha weyn noo leh haddaan nahay bulshada weynta Soomaaliyeed ee maalintii xorriyadda 1 Luulyo. qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxaha heerarka kala duwan ee dalkeena Soomaaliya ayaa xaflad hambalyo soo dhaweyn u diray gudoomiyaha isboortiga dhalinyarada jaaliyadda galmudug ee dalka Finland ahna wakiilka qaaradda Yurub. xafladda hambalyada uu soo qaban qaabiyay kuba sameeyaha kooxda kubadda cagta Horseed Cabdullaahi Cali Bile ayna ka soo qayb galeen xidiga matira xulka qaranka dalka Soomaaliya kooxaha kala duwan ee dalkeena Soomaaliya ayaa ugu horeyn ka hadlay hambalyadooda ku aadan gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda dalka Finland ee galmudug. waxaan meeshan ugu hambaliyeynayaa munaasabadan qaaliga anigoo ku hadlayo magaca ciyaartoyda waxaan meeshan ugu hambaliyeynayaa gudoomiyaha jaaliyadda galmudug ee dalka Finland ahna wakiilka Yurub. waxaan leeyahay hambaliyo dhammaan ciyaartoydii way ku garab joogaan. maxamed khaliif cali waxaan leeyahay mar walba ku garab taagnahay haddaan nahay dhalinyarada sportiska ee magaalada Muqdisho joogto hambaliyo mar labaad mar saddexaad. عاصمتي أحمد سيدو كانت هواية محمد قال فوحي لقى شيء لهاي ولا شيء وكل واحد فينا يعني هوش عسى أقل من إنه هي كجالي أهلنا وهو يدل على هذا وهو وقرب تاجرنا هاي والله شقيت دونا أنا جا إيه سبورتي أنا هاي مرة سبورتي إن هاي هو الشيء روح هاي إن سبورتي أصله هر مريو وكا محمد كل يوم أنا يا تكون بس أمور اسمه يوروب حتى ضرب جوديه سو laga dhisay oo ka dhisay yahay waana jeclaan lahayn in dalkeena gudihiisa laftigooda dhalinyaradu maanta ugu badan ee Soomaaliya waa 35% boqolkiiba waa dhalinyaro waxa kaliya oo la jecel yahay inay wax maaynaayaan inay tahay sportiga marka gudoomiyaha waa soo dhaweeyaa gudoomiyaha sportiga
محمد خليل صاحبي waxaan rabaa wax badan inaan ka qabto gaariida sportska waayo sportska wax badan u dhaca ninkan hadda ma sha Allah ma intuu kastirto oo naqo xilkan oo haya siga wax badan oo ka bedel baramo oo soo qabtay marka hadda in ka badan karajina insha Allah marka amaan wa salaam insha Allah aqalti laanti kaligi matayni hatina nastaqulin tabarilan bayni aqalti laanti kaligi matayni hatina nastaqulin tabarilan bayni كرت الشبع عداو اسكتي سلام كرت الشبع عداو اسكتي سلام munaasabad lagu weyneynayay 15 sano guuradii kasoo wareegtay aasaaska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Helsinki ee caasimadda waddanka Finland. munaasabadda waxaa soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Galmudug ee waddanka Finland waxaana kasoo qayb galay dad aad u badan oo isugu jira siyaasiyiin golaha deegaanka ka socda ururada ciyaaraha ganacsato haween iyo dhalinyaro iyo sidoo kale danjire Maxamed Cali Nuur Ameeriko oo marti u ahaa Soomaalida reer Finland. gudoomiyaha jaaliyadda Galmudug Cabdullaahi Cadceed ayaa aad ugu mahadceliyay dhammaan dadka kasoo qayb galay munaasabadda. sidoo kale waxaa halkaasi khudbado ka jeediyay mas'uuliyiintii munaasabadda isugu yimid. بعد السلام وحان hambaleynayaa shacabweynaha reer Galmudug oo maanta ay 15 guuradoodii ay gaartay ee iskugu hambalyeynaya sida quruxda badan wiigii horena waxaan ku hambalyeynay magaalada Turku jaaliyadda Galmudug qaasatan waxaan leeyahay hambalyo marka waxaan rabaa inaan ka qayb galo idinku hambaleeyo sanadgoodii 15aad ee Galmudug bil ka hor ayaan soo maray Kalkacyo waxaan ku soo arkay horumar waxaan rabaa horumarka insha Allah taala u rajeenayaa inay u sii kordho haddii la yiraahdo mar kale hambalyo gurigi gasiyada Galmudug gubti karashada Galmudug deegaanki gobolada Galmudug kulaha iga beeray Galmudug gurigi gasiyada Galmudug gubti karashada Galmudug ismoogi markani ismoogi meelaan marayaba moogi anki qalbigu markan waa Galmudug maqsad baanu madaxa nafuran annaga madaxa